Sheekada 24aad Yooxana oo biyo geliyey Ciise Masiix. Markuu Yooxana weynaaday, wuxuu noqday nebi. Wuxuu ku noolaa duurka, wuxuuna cuni jiray ayaxa iyo malabka. Markuu duurka joogayna, wuxuu dhar ka dhigan jiray maqaarka geela. Dad badan ayaa u imaan jiray isaga si ay u dhageystaan wacdigiisa. Yooxana dadka ayuu aad u baraarujin jiray, wuxuuna dhihi jiray, toobad keena, boqortooyada Ilaahay way soo dhowdahay. Markay maqleen fariintii Yooxana, qaar ka mid ahaa dadkii way toobad keeneen, wuuna biyo geliyey. Laakiin qaar badan oo ka tirsan wadaadada diinta ee u yimid Yooxana way diideen in ay toobad keenaan oo ay qirtaan dembigooda. Yooxana wuxuu ku yidhi wadaadadii diinta, waxaad tihiin koox masas ah, toobad keena oo dabeecaddan iska beddela. Geed kasta oo aan miro fiican dhalin waa la gooyaa waxaana lagu ridaa dabka. Yooxana wuxuu fulinayay saadaashii ay nebiyada sii sheegeen. Bal fiiri, waxaan soo diri doonaa rasuul oo jidka sii diyaarin doona. Qaar ka tirsan wadaadada diinta ayaa Yooxana weydiiyey inuu isagu yahay Masiixa. Laakiin Yooxana wuxuu ku yidhi, anigu ma ihi Masiixa, laakiin wuu imaan doonaa. Aad ayuu u qiimo badan yahay, oo xitaa aniga uma qalmo inaan kabaha ka furo isaga. Maalintii xigtay, Ciise wuxuu u yimid Yooxana si loo biyo geliyo. Markii Yooxana uu arkay Ciise, wuxuu yidhi, fiiriya, halkan waxaa socda wankii Ilaah ee adduunka ka qaadi lahaa dembiga. Yooxana wuxuu Ciise ku yidhi, uma qalmo inaan ku biyo geliyo adiga, waa inaad adiga i biyo geliso. Laakiin Ciise ayaa ku yidhi, waa inaad adigu i biyo gelisaa, waayo sidaas ayaa sax ah. Kadib, Yooxana ayaa biyo geliyey Ciise, xitaa isagoon dembi lahayn, waayo Ciise weligii ma uusan dembaabin. Markuu Ciise biyaha ka soo baxay, ruuxda Ilaah oo sidii qoolleyda oo kale ayaa ku soo degtay. Isla markaasna cod ayaa samada ka yeeray oo yidhi, waxaad tahay wiilkayga, waan ku jeclahay, waana kugu faraxsanahay. Ilaahay wuxuu Yooxana u sheegay in ruuxda quduuska ay ku soo degi doonto qof aad biyo gelisay, qofkaasna waa wiilka Ilaah. Waxaa jira hal Ilaah oo keliya, laakiin markii Yooxana oo biyo geliyey Ciise, wuxuu maqlay Ilaaha Aabbaha ah oo hadlaya. Wuxuu arkay Ilaaha Wiilka oo Ciise ah, wuxuuna arkay ruuxda quduuska.